kulanti wanaagsan daawadayaal, waan idin salaamay meel walba oo aad caalamka ka joogtaan. isku soo noqod wanaagsan. waa anigoo dhagaxley official halkaa naga daawanaysaan, waa youtube-ka dhagaxley official. dhammaan waxaan idin leeyahay ramadaan mubaarag, ramadaan kariim, meel walba dunida daafeeda aad ka joogtaan. ramadaankiisa bashbash barwaaqo la nagu gaarsiiyo. ramadaanka tabanka ugu dambana kuwii laga aqbala lah naga dhigo. walaalayaal kusoo dhawaada, kommentiidan waa aqrinaa, loofka dhacanigu siinaa. haddaad ku cusub tahay marka hore, haddaad ku cusub tahay youtube-keena, subscribe saar, batanka guduudka dhacsi, gamaleelkana furo si aad u hesho wararkii ugu dambeeyey oo markaas aad soo gasho daawadayaasha ugu horreey aad noqoto, oo loofkaadana subscribe-kaas aad raadinaysana commentiga meeshiisa aad ka hesho. yacni way fiican tahay qof ugu horreeya haddaad tahay, sababtoo liked way kugu soo waalanaysaa, liketa si waalniya u helaysaa. marka waxaan ku leeyahay haddaa baylka furata adeedan kuu tahay, sababtoo ah daawadayaasha ugu horreeya noqonaysaa, loofkeedana waa helaysaa, dadka xaggoodana kommitiyo badan, laygag badanna waa ka helaysaa. waxaana dhacdaa in la soo booqdo, subscribe-na lagu saaro youtube-kaada uuna kuu kala kaco. marka daawadayaasheeda ugu xiran waan idin salaamayaa, si kal ilaaba ayaan idin jeclahay. waxaan idin leenahay halkaasa laga sii wada halgankiina. dad badan ayaan maaragtana soo weydiiyey. marka ugu horeysa barnaamijkeena muxuu ku saabsanya? barnaamijkeena waa Irfaan Khan. Irfaan Khanna wuxuu dhintay 29 bishii afraad ee haddana soo weeraratay. dad badan ayaa komitida kusoo qoreen Irfaan Khan muslim inuu yahay ma xaqiijin karno. marka xogtiisa buuxdo dhagaxley official ayaad maanta nii wadaa, halkan ayaad ugu bogan doontaan. dhagaxley official halkaan naga daawadsan waa dhagaxley official. daawadayaal kusoo dhawaada. Irfaan Khan storigiisa ayaan gudagelaynaa. Irfaan Khan halkuu ku dhashtay, halkuu ku imaaday, muxuusan yahay, muslim miyaa? marka waan gudagelaynaa. horta saad ogtiin Irfaan Khan waa nin Bollywoodka kusoo biiray 1978 halka uu geeriyooday 29 bisha hadda ayna soo dhaaftay bisha afraad. Irfaan Khan wuxuu ku dhashtay magaala magaceeda la dhaho Jodhpur. halkuu kusoo barbaarana waa Rajasthan ayuu kusoo barbaaray, halkaasna ayuuna kusoo weynaaday. Irfaan Khan aabihiisa waxaa la dhahaa Khan was allaha mafahanta. aabihiisa waxaa la dhahaa, aniga dhexgalay, Yaasiin Cali Khan ayaa la dhahaa. halka hooyadiisa la dhahana Saida Bikon. waa fahmi waay, magaca aabihiisa magac muslim ayuu wataa, halka magaca hooyadiisana Saida Bikon la dhaho. ma garanayo, laakiin waxaan la yaabo iga yaabay waxaa waaye ma aragtay Irfaan Khan islaantiisa waa hindu. waa wax lala yaabo. marka hindidana kuwa muslimiinta sida aktarada caanka sida la ogyahay Salmaan Khan, sida la ogyahay Shahrukh Khan, muslim ayay sheegtaan, waana muslim ayay leeyihiin, laakiin waxay qabaan dad hindu waa. hinduduna waxay necab yihiin muslimiinta. saad ogtihiin wararka ugu dambeeyey ee bilahan dhan, imaaraadka wuxuu fiijiyey dad hindu oo ka shaqaysanayay maaragta halka cadaadis xagna ay uga hayaan hindugana ma aragtay Kashmir, dadka majaxanjaxyaasha xilka haya Narendra Modi. saad ogtihiin cirka la isku jiro, kabta la isku haya ma aragtay la isku tuturaya baasha. marka soo dhawaada, ninkani wuxuu ku dhashtay tuulo magaceeda la dhahay Rajasthan, halkaas ayuu kusoo barbaaray. ninkaana waa nin muslim ah. dhegeysta, ninkani waa nin muslim ah. hooyadiisana waxaa la dhahaa Saida Bikon la dhahaa, halka aabihiisna Yaasiin Cali Khan la dhahaa. ninkani waa nin muslim ah oona kusoo biiray 1978 halka uu geeriyooday 4 bisha afraad 29. daawadayaal, ninkaa xogtiisoo buuxdo iyo xogo kalena waxaad ugu bogan doontaan dhagaxley official. halka commentigana aad noogu reebi kartaan xogo badan ee ma aragtay barnaamijka. ma aragtay waxaad inaga soo codsataan ayaa laga soo jawaabayaa. marka barnaamijkeena waana intaas. daawadayaal, haddaad ku cusub tahay, subscribe saar batanka guduudka ah, like-tana qarxi, sheertana ma aragtay xaggiina waay. waxaan idin leenahay intaan isku soo laaban doono sidaas iyo nabadgelyo.